waxaa magaalada Hargeysa maanta si weyn looga xusay sanad guuradii 40-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururka Islaam oo ku beegan 6 Abriil. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirada wasaaradaha maaliyadda, duulista iyo cadaaladda, iyo qaar ka mid ah mujaahidiinta ururka Islaam iyo arday iyo marti sharaf aad u tiro badan. Ayaa waxa ugu horeyn munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha Jimciyadda Sooyaal Mujaahid Xasan Cabdi Maxamed ayaa ku dheeraaday maalintan iyo qiimaha ay leedahay. waxaana uu yiri مناسبة سيدي عمل مقبضتين وعين مقبضتين في أنت حرية من محافظة إيه من محارضة إيه من أسر من ملاحي مملوسة عسكري لكن أنا يسجل منها يوا ويلكن مملويين waxaana munaasabadani ka hadlay qaar ka mid ah mujaahidiinta Islaam iyo qaal waxaanay sheegeen faa'iidada ururka Islaam iyo sababaha keenay la asaaso ururkani Islaam. waxaana goobtani ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Xasan Cabdi Aadan, wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Xuseen Axmed Caydiid. waxaana hadaloodii ka mid ahaa maalintii SNM la asaasay aynu u dabaaldegno oo wadarkiisa dhalinyaradeena iskuuladiisa u soo baxeen dumarkii xaafadihii mujaahidiintii waynu u ducaynaynaa kuwii dhintay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto. anu markaan gaari Hargeysa ku wataba waxaan xusuustaa dadkii u dhintay ee suurta galiyay inaynu maanta magaalooyinkeena habeenkii saqada dhexe baabuur wadano iyadoo inaan cidna ka baqanayn. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariisto kuwa ku dhaawacmayna caafimaad siiyo. ummadda reer Soomaaliland fariinta aan runtii halkan u dirayana waxa weeye qarannimadaas qiimaha lagu joogto waa garanayna naf iyo maal baa loo soo huray waa la ilaabay dhaqasho waa loo ilaabay. waxaan leeyahay aan ilaashano aan ku tacabno aan hareeraha ka joogno aynu maalmaha noocaas iyo taariikhda qoritaankeedana aan isaga nimaadno meel ku jeedo. ururka Islaam halkan dheer buu soo maray xorriyaddan taariikhdiisa halkan runtii kuma soo koobi karo waxaase uu aynu si togan u abaari karaa halgankii ururka Islaam inuu guulaystay. ururka Islaam wuxuu xaqiijiyay himiladiisii ahaa inuu dalkan xoreeyo oo uu ka xoreeyo dawladdii kalidkaliska ahayd ee gacanta taladu u gashay cadaadiska iyo cabuliska iyo dilka iyo xasuuqa ummadan kula kacday. waxaa ugu dambeyntii munaasabadani xuska ahayd ka hadlay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwe Aamine Maxamuud Jirde Aamine Wareyse ayaa ugu horeyn dhammaan hambalyo u dirtay mujaahidiintii Islaam kuwii dhintay iyo kuwa nool, iyadoo sheegtay inay guulo weyn u soo hooyeen qarankani Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkaba. waxaana hadaladii ka mid ahaa diintii wixii shahiiday iyo kuwa curyaameynta ama cagaala ama dhitinaya ama naafoobay ay inoo galeen. si kastaba ahaatee maalintan ayaa ah maalin xusuus badan ay yihiin raggii dhidibada u taagay qarankani Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla mar ahaantana la harsanayo midhihii ay beereen maalintani. Cabdilaahi Riyaas, Somaliland Space Channel, Hargeysa.